السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودبو شلay toole waxaa la sheegaa magaalada Hamburg nin 29 sano jir ah inuu ku dhacay webiga Elbe asoo meesha u imaaday socod iyo damaashaad kadibna uu biyahaasi ku dhex dhintay shakadan waxay ka dhacday xeebta loo yaqaan Uvalgune ee magaalada Hamburg ninkan meesha wuxuu u imaaday asiga iyo asxaabtiis iyo familkiis inay ku damaashaadaan kuleelkii maalmahan jiray meesha iskaga qawoojiyaan socday u imaadeen laakiin waxaa la sheegaa ninkan inuu xigay qaybta webiga kadibna dhagax meesha yaale uu ku sawiixday dhagaxii uu ku dhaawacmay webiga uu ku dhacay kadib markii webiga uu ku dhacay biyihiisa qaadeen la wiila booday say u soo qabtaan labadii wiil way soo heli waayeen oo ninkii biyihiisa qaatay akhiran waxaa la wargeliyay emergency-ga meeshii waxaa imaaday booliska dabdamiska iyo hay'adda u qaabilsan badbaadinta dadka biyaha badda ku dhaco ama webiga ku qarqoomo sidoo kale waxaa la sheegaa xitaa inay imaadeen laba helicopter oo ka socday qayb booliska ka socotay qaybna waxay ka socotay ambulance laba saacadood howlgal qaatay oo biyahaasi webiga lagu dhex jiray waxaa la soo helay ninkii meedkiisii oo xitaa asoo dhaawac soo gaaray waxaa la sheegaa markuu sii dhacay inuu dhagaxa uu ku sawiixday oo ku dhuftay gaaladu waxay taagan yihiin ninkan hadda caawinaad hore hadduu heli lahaa oo maadaama caawinaad kasoo dahdo uu dhintay wuu noolaan lahaa laakiin waxay moogyihiin nafta haddii waqtigeeda hadduu galo inaysan caawinaad iyo wax walba daasiis inaadan celin karin ay baxayso sidoo kale ninkan waxaa u qorneed inuu gurigiisa kasoo baxo uu imaado webigan Elbe kadibna biyahaasi inuu ku qarqoomo oo ku dhinto ayaa u qorneed marka aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh